innagu haddaynu Soomaalina waxaynu qaadanay dariiqa ayna yareeyada dawladii weyneed waa lagu heshiin waayay ina kala gooya gobolkeedu ina kala gooya waa ina yareeyadii reerka heshiin waayay laba sultaan u samee kuwa hoosaasi waa saddex caaqil u samee waa ina yareeya xalkeenu hadduu qabiilka yahay hadduu dawladda yahay hadduu shirkadda yahay shirkadda xoolo la isku daraya say u buumuunsantay u shaqaynayso ayaa la odhanayaa labadii wadaad ee haystay baa isqabtayo way ku kala baxeen midna laba gaadh u qaatay midna laba gur u qaatay waa ina yareeya xalkeenu halka dunidu ay tahay mushkiladdu markay dhacdo war mushkiladda xal ma u helaynaa waa taasi caalam alislaam oo dhan maxaa ka jira gaalba intuu yimi jabiyey maya caalam alislaam inaga isjabinay gaalkuna dabku inala huriyey mid qori inaga iibiya iyo mid ina amaahiya iyo mid yidhaahda adaa xaq leh horow soco waa ku garab taaganaya iyo mid yidhaahda qaanuunkan kugu taageeraya United Nationka sidaa yidhi wuxuu doonayaa kugu taageero isna dabaduu kaa riixay markaad jabtayna wuu ku daawado wuu kugu qoslay weliba markaad xad jabkaagu gaadhayna wuxuu yidhi waxbaa kuu yaran dhiman oo wisaaya baad u baahantay hay-adaha midoobay iyo inay kula taliyaan waxaan idiin sheegayaa Soomaaliya waxbarashadeedu dugsiyada hoose 900 oo saacadood buu ahaa curriculumkeedu 900 oo saacadood ayuu ninka in elementary school ka dhigta curriculumkiisu ahaa markay isdishay ee jabtay ayaa UNESCO timo waxay tiri annaga idiin qoraynaa idinku de waa waalateen leene annaga idiin ma yaqabno annaga idiin samaynayna manhajtii laakiin aqligiinu rehabilitation buu baahayo ma qaadi kartaane 540 saacadood baanu idinka dhigaynaa 540 saacadood syllabus ku salaysan ayaanu idin siinaynaa si aad wax u barataan idan markaad jabto waa lagu talinayaa si kastaba waa lagu talinayaa ilaahay aayadda markuu inoo tilmaamay war waa daciifaysaan oo awoodiinuna waa tegaysaa oo cadowgii ma idinka faa'iidaysanaya ha isqabanina ayaa haddana aayadda waxa lagu gabagabeeyey u fiirso wasbiruu ina allaha maca asaabiriin baa la yidhi dadku markay wada joogaan bini aadamku markastoo tiradu sii badato mashaakilkuna wuu la bataa ilaa bini aadamku qof waliba akhtaadiisii buu wataaye markastoo tiradu sii badato mashaakilkuna wuu la bataa dadka aan xalka aqoonini mashaakilku markuu dhaco sida loo xalilo dadka aan aqoonini waxay xal ka dhigaan nidaamka la yidhaahaa ina yareeya si xalku inooga yaraado kun nin baynu ahayn Soomaha waa isqabannay mal xal isbari weyne 400 iyo 600 inoo kala jabiya marka nin waliba gruubkiisu ku farxaya waa inta isku ra'yiga haya mushkiladii la soo yaraanaysa ilaa gruubkani markii hadhow isqabtaan maxaa xal ah waa ina yareeyadii inoo kala jeex weeyaan gooso intaadana intayda goosanaya 200 baan naqaatay ta 300 ama 400 qaado ina yareeyay xal ka dhigaan dadkaan aqoonta lahayn bini aadamka si aqalku ku dambeeyay fakaraya waxay dhahdaan ay mushkilad timaada solution bay leedahay xal raadino mufaawadaadka aan badino wada hadalka aan badino xal aan raadino there should be a solution wa inuu jiraa wado mushkiladda lagu xalili karaa saadaradeed innagu haddaynu Soomaalina waxaynu qaadanay dariiqa ayna yareeyada dawladii weyneed waa lagu heshiin waayay ina kala gooya gobolkeedu ina kala gooya